السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووريسي قطة ديرا ويأرجنمدا البحنمدا كلها هني إن وريسنيني أما سؤالها سيدا دارك أبو ويدينيني مدحوينيني هراء قدوميني هراء أرتيدا ريج بوتيكو والكجانكري مضاني حسن عقال أحمد قيبتي اللي بدأ جودكالينا ديار باوتا هودو همولن باشكان مدحويني عاوة ساد هروسو شيكتو صح مقاحيدو anaga inoo shidanta نجي نحرق سنتا anaga inoo xidhisan صح marka ilaa say turkidu yiraahdaan sabaxa kada صباحا كذا Bordeaux. إنك إسكال إنك بردايس إسكال. فلان هل كان جوجنا ولا halkan waana joognaa insha صح سؤال قيبتي لواد بنقول كلينا ما دام حلكة هرأسو مرتي وض حلكة صو عرفتي وحكي دقيقة أنا حلم أعرف طب وحيد هذا حلكة ودب ضدنا حلكة في عين هبي هذا أدوجو مجعش مركلة إن النقطة مدحوينها قول كجانكري أرضية جوكتا أما سير باشكان أما قدومية إن النقطة أو بوزتي هري أوصو مرتي مركلة إن تطلع وأنت مجعشة ما شاء الله حسين هو سؤال آدي آد wanaagsan horta waxa la yiri haddaad meel soo martay صح waxaad ka noqotaa meesha qof amba maxaa la yiraahdaa allahumma salli ala maxamed wanaaga iyo khayrka ka shaqeeya صح sidaa daraadeed maanta su-aashan iminka aad weydiisay صح. waxaad tiri maad rabtaa amba maad jeceshahay mar labaad inaad kusoo noqotid xilka يس xuseenow horta run ahaantii horta nin xagga xilka كوفي عن ku fiican ما جعل ama jecel ها ma yihi صح laakiin dadka qofka kale faransiiska oo raggan faransiiska ku hadla waxay dhahdaan صح c'est l'autre qui peut te juger صح yacni qofka kale ها ayaa wax kuu Uba. sheegi karaa يا كوشي ha صح ayaa kuu sheegi karaa صح marka dadka kale waxay iga idhaahdaan niyo waxa tahay qof ku fiican حلكة كوفي xilka عن ha ku fiican صح laakiin aniga ahaanta iskuma arko xilkan aan soo qabtayna صح dhibaato markaa jirtay gobolka أم بكوكيس unbaa ii geysay si Ma jeclin. aan u walaalahay u saacido waxaan la qaban karana aan la qabto laakiin in aan mar labaad xilka maxaa la dhahdaa aan usoo fadhiisto صح mahaantii taa شغلكم مريض ha may baan oran karaa صح laakiin dad waxaa jira khibrad u leh cilmiyanna waxaa takhasus u leh صح oo aada ugu fiican ما شاء taa الله run ahaantii ما شاء الله أنت أد حلكة هسي هالكا جوكتي معارض يا محافظ كل نيكو مركو مدحونيها ما مالها استوب si fiican. معارض نوليه محافظ نوليه صح. أظن لبضة متكد لهاي معارض كذا برنامج محافظ كذا والله xuseen taa dadka la weydiin صح. karaa laakiin anigu horta markaad xil haysid صح mucaarid iyo muxaafid ba inaad yeelatid وصح aad bay u fiican tahay صح sababtoo ah maanta wax ku dhaliilaba haddaad weydid ها dee waad dhex Waad dhiganaysaa dhex waad dhiganaysaa. dhex fadhiso waxba qaban maysid صح laakiin dad ku dhaliila haddaad heshid أو أخذنا ضي ha akhdaadaadii arka berito ale subaxa waxaad kusoo kacaysaa inaad akhdaadaad dib u saxdid صح marka waxaad helaysaa motivation baad helaysaa موتيفيشن بهذا ha aad dib beri usoo kacdid صح oo aad tiraahdid niyow waxa waa inaad hagaajisid صح maad aragtay صح marka mucaaradnimaduna aad bay u fiican tahay oo sababta qofkan xilka haya صح inaad la isla xisaabtamo هنا aad bay u صح. wanaagsan tahay maad صح aragtay marka anigu wax dhibaato uma arko inuu qof xil haya mucaarid iyo muxaafid ba ay jiraan صح maad aragtay marka mucaaridkuna inuu fiicnaado muxaafidkuna inuu ahaado de qof wada xisaab yani waxa keliyaata la isku hayana صح ay noqoto de danta dadka iyo dalkaba صح سؤال ku xigta waxaan ku leeyahay kulley markaad meel maamulayso waxaad leedahay guddi ama si dad maareyso meesha dadka guddida iyo maamulka iyo ururkana kulley investment buu u baahan yahay maal ama waa inaad wixii dee maal buu u baahan yahay maamulka meesha aad maamuleysay xagee buu maalku inaga soo geli jiray ayaa sayna caawin jiray maasha allah xuseen waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan horta waxaan rabaa inaan dib kuu xasuusiyo in ay ururkan ahayd urur ardayeed yani Sax. arday iskugu yimaadeen صح marka ururka ardayda iskugu yimaadeenna badanka waxaa caqabada weyn waxa weeji yani maaliyadda yani Sax. xagee bay wax kaa soo geli karaan صح marka si aad waxaan u dhignay maxaa la dhahdaa waxaan u dhignay plan baan u dhignay صح si aan u helno maxaa la dhahdaa istaageersi صح marka dhexdiina wax noqotiin ها iyo dibaddana wax kaaga iman karaa ها marka waxaan sameynay inaan dhexdeennu annagu
wax noqono oo Sax. aan anagu dhexdeena wax iska ururno. Sax. waad og tahay adiguba Waan ogahay. bishii waxaa qof kasta laga qaadi jiray 10 teele. 10 teele. Sax. ha marka 10ka teele baan ururin jirnay. Sax. marka 10ka teele yaan insha allahu tacaala barnaamijyo aan ku qaban jirnay. Sax. barnaamijyadana haddaan aad dib u taabto waxaa ugu xusidaan mudnaa barnaamijkeenii quruxda badnaa ee aad ka ahayd daadiyaha barnaamijka otokaarka hoostiisa aan ku qabanay ee aan ku soo casunnay sheekheenii weynaa sheekh cabdirashiid cali suufi. maasha xaga maan ka salaamanaa isagana. boqolkiiba waan salaamaynaa. barnaamijkaaba aad iyo aad u fiicnaa. marka barnaamijyo kaloo aan qabanay oo badanna way jireen iyaguna. marka wax dibad naga soo geli jiray ma jirin, haba yaraatee ma jirin, laakiin annaga dhexdeenna unbaa wax isku geyn jirnay. marka gacmo wada jirna ayay wax ku gooyaan. marka insha allahu tacaala in aan taasina iminka sii socoto. marka abicleton waqtiga waad heli kartaa maaliyad, laakiin horta ugu horeyn adigu waa inaad ahaatid waa inaad wax soo saar yeelatid dhexdiina insha allahu tacaala. laakiin iminka dee 10kii teele berigii wixii ka dambe lama qaado, marka taasna caqabad ayay ku noqonaysaa oo waxa la garan jiray hoolal ayaan usoo joogay. bishii sanadkii cusbaa hoolka aan fadhinay, maalintii aan fadhinay oo maalintii kubadaha waa kii ayaanta garoonka waa nagii kareeyey, waa kii si fiican maxaan ku rahdaa kuubka halka ugu bixiseen. maasha allah, horta barnaamijyo horumar ay ahaayeen, inkastoo markii dambe dee xanuunku dhulkii qaribay. si fiican. haddaan xuseen xagga kaasoo yar dhex galo, run ahaantii waxay ahayd waqtigaas waqti aad u fiican. wax xanuun jirin, uu jirin ay dhibaata ay jirin, oo laisku soo dhowaan karo, walaaltinimo iyo galgacaylnimo laiskula fadhiisan jiray, oo meel wax lagu wada cuni jiray. laakiin xanuunkan covid-19ka daraaddii inay wax kastaba xirxirmaan yaa keentay. taana waxay caqabad u noqotay ururka in ay isdhexgalkii, ileen sabab ururku waa maxay? wuxuu ka shaqeeyaa isdhexgalka ardayda. marka isdhexgalka ardaydii waxay noqotay si loo gaadho ardaydii dhibaato ayay noqotay. yani caqabadiina isku tegi kelmadii aan ribataa isku tegi ayaa adkaaday. sidaa daraaddeed isku tegaasi waxa keenay waa covid-19 maaha wax ay urur dib uga dhacay ama dib wax ugu fadhiistay. laakiin xaggana waxaan aad uga maxaa la dhahdaa uga tahniyadeynayaa tiimka Nasruddin iyo tiimkiisa oo ah iyagu caqabada jirta daraaddeed haddana kusii shaqeeyey weli haddaa shaqadiina sii wada. marka hawlihii social mediaga u bedelay insha allahu tacaala in lagu xidhnaado oo daba socda 100% aan rajaynaynaa. iyagana in ay ka niyad jebin, oo sababtoo ah markii arday leeyahay ileen meesha faa'iido xuseen kaama soo galayso. waa keliya inaan la walaaloobo, keliya la walaaloobo ayaa loo dadaalaya. marka in ay dadkiina ka sugaan maxaa la yidhaahdaa wax badan, ay yagiina covid-19ka daraaddii ay wax badan qaban waayaan, in iyagana niyadjab ku noqon maaragtay. oo badanka markii aad wixii aad markaad ururka gudoomiye arday ka tahay, motivationka waxa ku siin kara ardayda ku siin kara. markaad soo horjoogsato su'aalaha lagu weydiinaya. marka su'aalahaasi si aad uga jawaabtid waa inaad waqtigaagii aad heshid si fiican inaad uga shaqaysid waqtigaagii. marka insha allahu tacaala walaalahayga iminka joogan insha allah waxaan rajaynayaa khayr badan. insha allah waqti adag bay kusoo hagaageen, iyagoo waqti adag lagu jirana waa kuwa ka baxaya insha allah. ilaahu fudeediyo. dhammaantoodna waan salaamaynaa. ardaydana waxaan leenahay noqda kuwa isku duubnaada ee walaalooba, maxaan ku rahday noqdo gacan kala hatay noqda. leana hadduu dadku gacan kala hatay hadday noqdaan waxay noqdaan dad guuleysta. mahmaa soomaalida baa tirahdaa miciyo rag waa mudac iyo ilkahood bay tirahdaa. marka haddii dee laisku tego laistaageersado waxaan noqonaynaa dad baan noqonaynaa, magacna waan yeelanaynaa. sidaas ayaan oran lahayn. haddaan barnaamijka intaa kaga soo baxno, su-aashii u dambeysay oo barnaamijka su-aalaha xaggaas ka duwan waxay ku leedahay ma jiraan waxaad xasanow aad ka qoomamayso ood samaysay aad geysatay, laakiin imkaa ka ragalatayso oo tirahdo maxaad waxaa u geysatay u samaysay? waa su-aal aad iyo aad wanaagsan xuseenow. wallaahi iminka ahaan
wax jirta oo aan ka qoomameeyo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta in aad qoomameysid صح waa qaraar aad qaadatay ku xidhan tahay صح marka waxaan u maleeyaa in aan qaraaradan soo qaato oo dhan waxaan ka qoomameeyay ay jireen كوهر كلام ay ii hirgaleen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ما شاء الله wax iminka aan ka qoomameeyana Ma ma jiro. jirin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ما شاء الله boqolkiiba boqol barnaamijkeenu intaasuu ku kooban yahay boqolkiiba boqol walaalkeen xasan aad ayuu mahadsan yahay baashkankeenii hore halkan buu inaga salaamayaa maxaan ku rahday dhammaantiinani waa salaamaynaa xaggaas aan isku iyaad ka daawan doontaan janalka mudane xuseen anoo ka faa'iidaysanaya xuseen صح صح xaggan dhammaan waxaan ka wada salaamayaa Sax. walaalahayga reer jabuuti صح dhammaan ummadda soomaaliyeed صح waxaan leeyahay gacmo wadajir bay wax ku gooya wax ku gooyaan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in uu janalka noqdo janal laga faa'iidaysto صح waxyaabo badan uu soo biirin doono insha Sax. allahu tacaala صح dhinaca aqoonta dhinaca dhaqanka Mm. dhinaca Dhinac walba. dhinac walba hadduu ilahay raaco. janal ka maxaa la dhahaa janal buuxiye inuu noqdo صح inaguna waxaan niga rabnaa صح amba si aan u garab joogsano walaalkeen صح waxaan niga rabnaa in aan subscribe-ka aad kunka gaarsiisaan aad cirka ka saartid cirkaba kunka dhaafa boqolka gaarsiisaan ha cirka ما aad ka شاء الله saartid ما aad شاء الله aragtid. ما شاء الله ما شاء الله oo aan maxaa la dhahdaa like maxay ahayd لايك يا شات like سبسكرايب shareka iyo subscribe-ta انت والله دعنا inta baad la dhacdid صح wax culus oo maahay gacanta maad odhanaysaa والله تطمن يا وارون وارون gowdhe صح marka waa sida insha allahu tacaala intaa baan niga suganaa waa walaalkiin xasan cigaal axmed oo inileh habeen wanaagsan نبت كليو nabadgelyo أمانة الله amaano allah wabilahi towfiiq وبالله التوفيق